muuqaalkani waxa uu muhiim u yahay qof kastoo baranaya programmingka qaybihiisa kala duwan ha ahaato web development, software development, app development iyo xitaa cybersecurity-ga. waxayna maanta baranaynaa mid ka mid ah mawduucyadan ku tilmaami karno wadnaha programmingka. yacni markaysu nahno qiimeeya mawduucan waa mid ay aad muhiim tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed inay wax badan ka bartaan ay fahmaan. mawduucaasina waa version control. muuqaal hore ayaan ku faahfaahinay waxa uu yahay version control iyo sida uu muhiimka u yahay. muuqaalkeena maanta waxaan kusoo qaadanaynaa sida loo adeegsado version control khaasatan toolka Git iyo platformka GitHub. waxaan isna arki doono waxa uu yahay iyo qaabka loo adeegsado. soo dhawaada dhalinyaro. waan iska dhaafaynaa hordhaca Git maadaama aynu hore usoo barannay. sidaad hore usoo daawanina muuqaalkan kaga hadalnay waxaa muhiim ah inaad marka hore kaasi soo daawato halkan sare ay ka daawan kartaa. okay, haddaba waxaan sameynaynaa project front end ah si aan si fiican u fahanno soo shaqeeyo Git. marka hore computerka ka samayso folder una bixi magac. kan waxaan u bixinaynaa front end project. waxaynu gudihiisa ku sameynaynaa saddexda file ee HTML, CSS iyo JavaScript. okay, marka saddexdaas sameyno waxaan soo tagsiinaynaa Git. soo tagsiitana soo gal website-kan kala soo dooro operating system-ka aad adeegsanayso. marka la soo degto Git hubi in Git uu ku shaqeynayo oo terminalka ama command prompt-ga Windows ku qor Git version. haddii version markaad aragto macnaheedu waa in si sax ah usoo degsatay. okay, marka Git kusoo dego waxaa directory-gaaga bedeshaa folderkii aynu sameynay ee front end project adigoo qoraya change directory kadibna location-ka folderkaasi. markaad soo gasho folderkii aynu bilowno adeegsiga Git. waxaanu qoraynaa Git init. waxaana command-kani inoo bilaabayaa Git balse ma arki doono wax isbedel ah. kadib waxaan eegaynaa statuska project-yan. waxaanu qoraynaa Git status. command-kanina waxaanu tusaynayaa faylka Git ku jira iyo kuwaan lagu darin. marka aynu faylkeennii HTML, CSS iyo JavaScript ku darno inagoo qoraynaa git add dot. dotkaasi waxa uu taagan yahay in dhammaan faylska ku jira folderkan lagu daro Git. haddii arabto inaad fayl khaas ah ku dartana waxaad calaamadinaysaa magaca faylkaasi. tusaale ahaan git add index.html. okay, markaa kadib aynu sameynaa commit oo ah cd save oo kale. haddaynu hadal ahaan turjumo ficilkan waxaynu oran karnaa inuu save gare markii ay fails marayeen xaaladaasi. yacni haddii hadhow u baahano inaynu dib ugu noqono markay fails marayeen bilowgii oo kale si fudud ayaynu heli karnaa. waxaad si dhow u fahmi kartaa sidii save the games oo kale. markaad gameka save tiraahdo eed ka baxdo hadhow markaad dib ugu soo noqoto halkii aad kasii laaban kartaa. taasi ayaa si fudud u fahmaysaa. project-kan iminka bilowga ah maalinka aynu ka dhigno mid weyn oo codes badan leh waxaynu awood u yeelanaynaa inaynu heli karno maalinka bilowga ahaa sida uu ekaa. taasna waa arrin cajiiba soo maahan. okay, si aan u sameyno commit waxaynu qoraynaa command-kan git commit m. m-kaasina waxay noo garanaysaa inaynu raacin karno raad. tusaale ahaan waxaynu dhahaynaa bilowgii hore ee HTML, CSS iyo JavaScript. okay, iminka waynoo save garaysmay bilowgaasi. haddaba wax balaynu isku dayno inaan wax ka bedelno faylskaasi. tusaale ahaan CSS-ka ee background ka bedelaynaa. kadibna save dheh kusoo noqo terminalkii. waxaynu qoraynaa command-kii tusinaya faylska ku jira Git iyo kuwaan ku jirin kaasi oo ahaa Git status. waxaana inoo muuqata in Git gartay in isbedel ku dhacay CSS faylkeennii. markay isbedel sameynana waxaa lanaga baahan yahay inaan sameyno commit oo aan ku darno Git. marka waxaynu qoraynaa git add kadibna faylkan wax ka bedelnay waa CSS-ka. marka keliya aan ku daraynaa waxaan dhahaynaa git add styles CSS. markaynu ku darno waynaan save garaynaa oo commit ku sameynaa. farinta aynu raacinaynaana waa shaqadii aan qabanay taasi oo ahayd background-kii ayaynu bedelnay. okay, sidaasi ayay isbedel kasta ku sameynayso codeskaaga ugu sameyn kartaa version control. okay, haddaba platformka GitHub oo aynu badan maqalna si kooban waa platform loogu talagalay programmerska taasi oo lagu kaydsan karo projectyada iyo codeska. lagu talagalin karo isbedelo lagu sameeyo codeska lagana qayb qaadan karo projectyada open source-ka ah. waxaa sidoo kale GitHub loo adeegsan karaa code review-ga taasi oo programmerska professionalska ahi ku akhrin karaan codeska kana soo saari karaa waxyaabaha khaldan ee ku jira sidaasna lagu sixi karo. okay, haddaba haddii aad account ku lahayn GitHub ka samayso account waana wax fudud oo qof kasta samayn karo. marka waan iska dhaafaynaa oo waxaynu u gudbaynaa inaynu sameyno repository. repository waa sidii folder oo kale. waxaynu u adeegsan doonaa inaynu ku ururino fayliska aynu adeegsanayno. waxaynu samayn karnaa access control aynu xadidi karno cidii adeegsanaysa. waxaynu ka samayn karnaa collaboration oo dad badan ayaa ku wadaagi kara codes iyo qodobkan haddii ka warrameynay ee version control aynu u adeegsanayno.
سو سميسا repository له waxaad taabanaysaa calaamadan pluska ah xagga sare inooga muuqata dooro new repository waxaana bixisaa magaca tusaale ahaan front end project haddii rabtana waxaad samayn kartaa description aad ku qeexaysa repositorygaaga kadibna taabo create okay intaas markaan sameyno ayaan isku xidhiidhino git iyo github waxaadna qortaa commandkan git remote add origin iyo linkiga repositorygaaga saad hesho linkigana halka sare kasoo koobidhe marka aynu isku xidhiidhino git iyo github waxaynu koobiskii ku upload garanaynaa github sidaad taasi u samaysana waxaad qoraysaa git push new origin master kadibna waxaan arkaynaa in projectgeeni uu hadda online dhex yahay repositorygeenii aynu isku dayno inaynu isbedel ku sameyno faylskeenii waxaynu wax ka bedelaynaa javascriptiga waxaana buttonkan ka bedelaynaa qoraalka ku qoran okay aynu ku darno haddaba git add script.js commitna aynu ku sameyno git commit messagekuna waa waxaan bedelnay qoraalka ku qoran buttonka kadibna intaasi aynu gelino github inagoo qorayna git push okay iminka waxaanu samayn karnaa inaynu degsano ama dad kaleba degsan karaan projectgeenani sidaad taasi u samaysana waxaad taabataa buttonkan linkiga soo koobidhe waxaadna qortaa git clone linkigii haddaba qodob kale oo muhiim ah ayaa jira waana branches marka qaar waxaad u baahan kartaa inaad tijaabiso features cusub oo aad kusoo darto projectkaaga isla markaasna ma rabtid in featurekaasi aad ku dhex tijaabiso projectkaaga mainka ah dhexdiisa markaas sidoo kale waxaan samayn karnaa branches samayso branchesna waxaad qoraysaa git checkout p new feature okay kadibna wax bedelno oo qalanka falta aynu ka bedelno kadibna aynu ku darno git isbedelkaas aynu samaynay markaad rabto inaad ka baxdo branchka waxaad qoraysaa git checkout master ugu dambeyn haddii aad ku qaracday isbedelkaas aad ku samaysay waxaad samayn kartaa inaad featurekaas ku dhex tagto mainkaagii waxaadna taasi ku samayn kartaa adigoo adeegsanaya commandkan git merge new version balse xasuusnow inaad marka hore usoo wareegto mainka oo kasoo baxdo branchiga adigoo adeegsanaya commandkii hore ee git checkout master okay intaas aad ku leeyahay version control طبعا waxyaabo badan oo fancy ah way jiraan balse intaas haddii aad si fiican fahanto wax badan ay kuu fudaanaya waana inta basic ugu ah version control waxaan rajeynayaa in wax badan idka caawin doonto barashada version control dhalinyaro maadaama qodobkan yahay mid aad muhiim u ah dhallinyaradina aysan ku baraarugsanayn waxaa habboon in qodobkan gaaro dhallinta ugu badan ee uu gaari karo marka la wadaag asxaabtaada muuqaalkan si wax badan uga bartaan version control mahadsanid